السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحران دير نيوز عاو وحان إذين وضع warbixin qusaysa dhanka dumarka. Waxaan ka hadli doonaa xubinta taranka dumarka oo ciriiri noqota virgin mass waa cillad galmo oo ku dhacda dumarka qaar waxayna sababtaa dareen xanuun badan xilliga galmada taasoo hoos u dhac weyn ku keenta tayada galmada. cilladan waxay faragelin ku samaysaa xiriirka lamaanaha iyo tayada noloshooda. dumarka qaba xaaladan waxaasi ikhtiyaar la'aan ah isu soo urura murqaha xubinta galmada, waxayna dhacdaa inta aan la bilaabin galmada. inkastoo dumarka qaar uu isu soo ururo murqaha farjiga xilliga aan ahayn xilliyada galmada, sida marka ay isticmaalayaan tobonium always ama marka la taabto hareeraha farjiga. xaaladan waxaa loo yaqaanaa virgin mass, waana xaalad is-hortaagi karta in loo galmoodo. qofka qaba xaaladan waa xaalad ka dhigta galmada mid aad u xanuun badan. xubinta taranka oo isku ururta isma hortaagto kacsiga qofka dumarka, laakiin wuxuu is-hortaagaa galmada. noocyada virgin mass waa laba qayb. number 1, premier of virgin mass waa marka qofka dumarka ah aan weligeed loo galmoon, haddana ay dareento xanuun markasta oo la isku dayo in loo galmoodo. number 2, secondary virgin mass waa markay ay noqoto galmada mid xanuun badan leh, inkastoo awal aysan ahayn mid xanuun leh. marxaladan waxaa sababi kara qaliinada lagu sameeyo dumarka qaar ayaa waxaa la soo darisa cidhiidhigan marka ay dhalmogooyaan, waxaana loo aaneynayaa inay sababta dheecaanka intonorjin ee heerkiisu hoos u dhaca marka dumarka ay dhalmogooyaan. hormoonka estrogen wuxuu sahlaa laastiga iyo qoyaanka xubinta galmada. maxaa sababa virgin mass? ilaa iyo hadda lama oga waxa sababa arrintan, laakiin waxaa la isku raacay mararka qaar inaysan jirin wax sababa. hase yeeshee waxaa lala xiriirinayaa walwalka qofka dumarka ah uu ka qabo galmada inay tahay mid xanuun badan. sidaa darteed waxaa si ikhtiyaar la'aan ah isugu soo urura xubinta taranka. sidee loola tacaali karaa virgin mass? xaaladan waa xaalad la daweyn karo iyadoon la isticmaalin wax dawo ah, waxaana loo daweeyaa si ku dheehan barashada galmada, la talin iyo jimicsi. waa barasho la xiriirta waxa laga barto qaab dhismeedka jirkaaga iyo sida ay wax u dhacaan marka lagu guda jiro galmada. macluumaad ku saabsan murqaha isku soo ururo iyo waxa sababi kara inay isku soo ururaan waxa kaloo ka mid ah barashada in wax laga barto xiriirka ka dhexeeya maskaxda iyo xubnaha taranka. waana barasho sahli karta inaad macluumaad saxan ka heshid xubnaha jirkaaga iyo sida ay u falgalaan xilliga lagu guda jiro galmada. waasiciye waa aag dhuuban loogu talagalay in si tartiib ah loogu waasiciyo xubinta galmada haweenka, waxaana laga yaabaa in dhakhtarkaagu kugula taliyo inaad isticmaashid waasiciye virginal drug. waasiciyaha wuxuu caawiyaa inay kala baxaan murqaha farjiga oo ay kuu fududaato galmada iyo noloshaada cusub ee quruxda badan. waad ku mahadsantihiin la socodka janalkeena iyo ku xirnaanta janalkeena malaayiin jeer iyo kumanaan jeerba.